10 qodob oo kaa dhigaya qof bisil noloshiisa, hanan kara fikirkiisana dadka ku qancin kara afkaarta qof bisil. shaki kuma jiro in marxaladda carruurnimo ay ka mid tahay marxaladaha ugu wanaagsan ee uu aadamuhu soo maro. ma laha xakame iyo xisaab ama mas'uuliyadda cusub oo farxadda u diidaa, keliya waa cun oo ciyaar. laakiin suurtogal maaha in marxaladdaasi ay waarto, qof kastaana isaga oo aanay ciddi kala tashan doonistiisa iyo diidmadiisa midna iyada oo aan loo eegin ayaa haddii waddaayo ay dadu iskuraysaa ilaa uu noqdo qof bisil oo fikir iyo aragti looga fadhiyo. koritaanka saxda ahi maaha ka jidhka oo keliya ah, balse waa ka uu caqligu la koro dada qofka. barbaarinta iyo edbintuna kuma joogsato carruurnimada ee waalidka laga rabo, balse waxaa waajib ah in qofku uu si joogto ah naftiisa u siiyo duruus edbin ah iyo barbarin uu naftiisa iyo akhlaaqdiisa ku sameeyo si uu u yeesho awood uu ku xakamayn karo jawaab celintiisa, fikirkiisa iyo habdhaqankiisa. si kastaba ha ahaato ee marxaladaha kala duwan ee dhinaca tarbiyada iyo bisaylka uu aadamuhu u maro waxaa ugu adagta kala guurka ah ee u dhexaysa marxaladda carruurnimo iyo marxaladda bisayl. waxaa ku adkaata in uu iska reebo raadka carruurnimo oo uu bulshada ku dhex joogo qaangaadhnimo dhinaca maskaxda ah. qormadan aynu af Soomaali u soo rognay waxa ay bixinaysaa talooyin muhiim ah oo qofka raaca ka caawin kara in uu noqdo qof bisil, naftiisa hanan kara, isxakamayn og oo jawaab celin caafimaad qabta bixin kara. hal aragtidaadu ha noqoto mid waaqaca aad joogto la jaan qaadaysa. carruurnimadu waxa ay caan ku tahay riyo maalmeed ilmaha u sawirta nolol ubax keliya la arkayo. ilmo kastaa waxa uu si farxad leh ula nool yahay duni wada khayaali ah oo uu isu arko in uu yahay halyey iyo geesi aan hortii la arag mid u dhigma ama uu u macaamilo sida amiirada dunida uu sawirayo filimka carruureedka Disney. laakiin runtu taas aad ayaa ay ugu fog tahay. sidaa awgeed waxaa qasab ah in aragtida aad nolosha ku eegaysaa ay noqoto mid waaqaca iyo runta hortaada taalla ka duulaysa. ciddi kaama doonayso in aad faraha ka qaaddo himiladaada iyo riyadaada, laakiin waxa aad ogaataa in aad joogto wakhtigii aad cagaha si buuxda inta aad dhulka u dhigto bilaabi lahayd xaqiijinteeda, adiga oo duruuftaada runta ah og. dantaada iyo madaxaaga midna lagama boodo. 2 muuqaaga duleed danee. xilliga carruurta dan kama gashid waxa aad ku labisanayso, keliya waxaa muhiim ku ah in aad faraxsan tahay. laakiin marka aad jaamacadda gasho ama shaqo tagto waxaa qasab ah in dharka aad xidhanaysaa ay noqdaan kuwa kuu qalma. haddii kale dadka oo maangaab isaga badan ayaa kuu malayn doona in aad tahay ruux aan weli caqli ahaan bulshada soo dhex geli karin. waxa aanad arki dad badan oo aan kuuba arkayn in aad u qalanto mustawaha runta ah ee aad nolosha bulshada ku leedahay. 3 naftaada ku kalsoonow. waxa aad ku dadaashaa in naftaada aad ku beerto kalsooni, shakhsiyaddaada intii suurtogal ah aad ku qanacdo. cidina ma jecla mana danayso ruux walaac badan oo aan hal adayg lahayn. in aad noqoto ruux naftiisa ku kalsoon waxa aad ku kasbanaysaa ixtiraamka dadka iyo in ay iyaguna kugu kalsoonaadaan. laakiin ogow in ay kala duwan yihiin naftaada oo aad ku kalsoonaato iyo indho adayga akhlaaqadaada dhaawacaya. 4 baro sida loo doodo. in qofku dooda u bisil yahay waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah in aanu qaylin, in aanu cadhoon inta dooda socoto iyo in uu naftiisa xakamayn karo oo eray kastaa inta aanu afkiisa ka soo bixin uu garan karo saamayn taban iyo mid togan ka uu yeelan karo. tusaale ahaan in aanu erayo xun, aflagaado ama meel ka dhac iskaga dhawaaqin. qofka bisil waa in uu awood u leeyahay in dooda uu ku jiro uu maamulo si deggan oo ilbaxnimo sare ka muuqato. in aanu wax kasta oo uu maqlay iskaga doodin ee eray kasta uu noqdo mid uu xujo iyo caddayn u hayo. sidoo kale aragtida uu ku adkaysanayaa in ay noqoto mid cilmi ku fadhida. waa in uu noqdaa qof maskax furan oo awood u leh in uu aqbalo aragtida dadka kale haddii uu ku argo run iyo saxnaan. 5 shucuurtaada xakamee. sifooyinka shakhsiga ah waxaa ugu muhiimsan in qofku uu noqdo qof awood u leh in uu jawaab celintiisa xakamayn kara. iska jir in cadhadu kaa xoog badato oo ay dibadda soo dhigto shucuurtaada runta ah. ku dadaal in jawaab celintaadu noqoto mid miisaaman oo u qalanta munaasabadda iyo qofka aad la hadlayso labadaba. iska jir cayda iyo aflagaadada, gaar ahaan marka qofka aad la doodaysaa uu isku dayo in uu sanka ku taabto, kaa cadhaysiiyo, ama wax uu og yahay in aad ka xumaanayso uu si badheedh ah u sameeyo. ilbaxnimadu waa in aad qofka si deggan ugu sheegto waxa aad diidan tahay ama kaa cadhaysiinaya. haddii uu ku sii socdana si dhibyar uga agfogow, hana siinin fursad dambe oo uu arrintaas ku cabbiro. 6 jidka noloshaadu marayso adigu taladeeda gacanta ku hay. waxaa waajib ah in aad noqoto ruux awood u leh in uu qaato go'aamada naftiisa khuseeya si maamulidda jidka noloshiisu maraysaa aanu gacantiisa uga bixin. qofka bisil waa kana aan ka baqan go'aanka uu qaato wax ka dhalan kara ama natiijada ku lamaanaan karta.
keliya si fiican u fikir dhammaan talooyinka lagu siiyo iyo kuwa maankaaga ku jira si fiican u eeg midna u qiimee ilaa ay kuu suurtogasho in aad ka isleedahay wuu ugu habboon yahay doorato. waa arrin caadi ah in aad qoyskaaga iyo saaxiibada cidda aad doonto kala tashato, laakiin waa in aad niyadda ku hayso in go'aanka ugu dambeeya ee aad qaadanaysaa uu noqdo ka ay naftaadu ku qanacsan tahay in uu saxdii yahay, xitaa haddii uu ka hor imaanayo qaar badan oo ka mid ah talooyinkii muhiimka ahaa ee lagu siiyey. waayo ugu dambaynta go'aankani adiga ayuunbaa uu ku khuseeyaa dhib iyo dheef wixii ka dhashana la noolaan doona. 7 ha ka baqan in aad waajahdo mushkiladahaaga. qofka bisili waa ka aan ka warwareegin kana baxsan mas'uuliyadaha saaran iyo mushkiladaha shakhsiga ah ee haysta, balse ku waajaha hal adayg si fiicanna u garan kara sida ugu habboon ee uu xal maangal ah ugu heli karo. waxaa fiican in qofku uu qirto ceebihiisa oo dhan ka hor inta aanay cid kale u sheegin ceebtiisa. ogow, ma jiro qof aan ceeb lahayni, laakiin waxaa jira qof garanaya sida ay tahay in uu waajaho iskagan caabiyo, iyo qof iska daaya inta ay ceebtaasi sii naaxayso ee ay noqonayso boog madow oo shakhsiyaddiisa ku taala. qof kastaa labadaa ha kala doorto. sideed qoyskaaga daryeelkooda ogow. berigii hore labadaada waalid ayaa ku siin jiray wax kasta oo aad u baahato oo daryeel iyo gacanqabasho ah, waana hubaal waalidkaa inta uu nool yahay ee uu awood u leeyahay in uu ku garab taagnaan doono, laakiin miyaanay kula ahayn in la gaadhay wakhtigii aad adigu mas'uuliyadahaaga la wareegi lahayd? macnuhu maaha in lagaa doonayo in aad maamusho ganacsiga iyo shaqada aabbahaa qabto. sidoo kale, ujeeddadu maaha in markaba lagaa rabo in aad adigu la wareegto mas'uuliyaddii biilinta qoyska, laakiin waa in aad marka hore ugu yaraan isku daydaa in aad mushkiladaha qoyska u dhuundaloosho xal u raadintoodana qayb ka ahaato. maanta ayaa aad weli dhowdahay ee naftaada ku tababar in qarashka ay isticmaalayso ee shakhsiga ahi uu noqdo mid caqli iyo xisaab ku socda. mas'uuliyadahaaga oo aad la wareegto waxa aad ka bilaabaysaa in aad marka hore yarayso ku tiirsanaanta dhinaca qarashka ee waalidka, oo aad ku dadaasho in marka aad waxbarashada dhammaysataba raadsato shaqo. 9 cafiska ogow. nacaybka, caloolxumada iyo in aad argoosi u orodaa kama mid aha dabeecadaha lagu yaqaano shakhsiga bisil. qofka nolosha u bisili waa qof si tolmoon u fikiraya, awood u leh in uu cafiyo khaladaadka dadka ku xeeran kaga yimaada, aqbalana raaligelinta cidda ku gefta. qofka nolosha u bisili waa ka aan ku fikirin argoosiga, xumaantana aan xumaan kaga jawaabin. haddii aad dabeecaddaa baratana waxaa hubaal ah in aad noqonayso qof aan nafsi ahaan u xasiloonayn, mar kastana maskaxdiisu ku mashquulsan tahay argoosi iyo arrimo caqabad ku noqonaya horusocodkiisa. 10 ha noqon danayste. ku dadaal in aad dadka gacan qabato, khayr iyo samaanna u rajayso intii aad awooddo. qofka oo naftiisa uun wanaag kasta la doonaa waxa ay astaan u tahay in uu yahay qof aan xasiloonayn, ammaan darro nafsi ahna dareemaya. waxa ay ka mid tahay dabeecadaha lagu yaqaano dadka aan fikir ahaan bislayn. deeqsinimada iyo waxbixintu ku ka koobna dhinaca adduunka, balse waxaa jira waxbixin dareen ah oo aan la taaban karin oo ka badan tan la taaban karo. adiga oo ku dadaala in aad farxad geliso dadka kugu xeeran ayaa ka mid ah deeqsinimada ugu habboon. ugu dambayntiina waa in aad kala garato bisaylka iyo weji xidhnaanta. qofka bisili maaha qof weji xidhan, mar kastana si aan kaftan ahayn wax u eega, balse waa qofka garanaya marka ay tahay in uu qoslo iyo cidda ay tahay in uu la qoslo, marka ay tahay in uu wakhtigiisa ku raaxayso iyo marka ay tahay in kaftan iyo ilaaq uu dhinac iska dhigo. qofka aan dhiman in habeen kasta cimri u kordhaa waa lama huraan, idina waxba kala beddeli karto, laakiin in aad noloshaada ku raaxaysato dhabta iyo dheeldheelkana isu miisaantaa waa doorasho qofka ka imaanaysa, oo ay tahay in ay ku dhisnaato maskax iyo awood uu qofku u yeesho qorshaynta. dad aad u yar ayuun baana sida ay tahay uga soo baxa.